fanaankii hore ee reer Hargeysa Maxamed Saciid Beekey ayaa markii ugu horreysay waxa uu daaha ka qaaday arrimo kala duwan oo la xiriira noloshiisa faneed iyo waayihiisa faneed oo uu dadka uga taariikhiyay arrimo dhowr ah iyo waxyaabo dahsoon oo aysan kala socon noloshiisa iyo muddada uu fanka ku jiray. Maxamed Saciid Beekey ayaa waxa uu ka taariikhiyay sida uu fanka uga baxay, dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee soo food saaray inta uu fanka ku jiray, iyo sidoo kale caqabadihii ka haystay fankiisa. Maxamed Saciid Beekey ayaa waxa uu ka taariikhiyay xilliga uu fanka ku jiray in ay jirtay dhacdo aad u xanuun badan oo xilligaasi lasoo gudboonaatay, islamarkaana uu sheegay in maalin maalmaha ka mid ah isagoo fanka weli ku jira in uu la kulmay halistii ugu weyneed ee ahayd in cabitaan ama shaah loogu daro sun, islamarkaana la isku daya in la sumeeyo. haddaba Maxamed Saciid Beekey ayaa isagoo ka gaabsanaya in uu carabaabo shakhsiyaadka xilligaasi ka agdhowaa ama agagaarkiisa fadhiyey, islamarkaana ay wada fadhiyeen, waxaase uu sheegay in xilligaasi ay xilliga ugu halista badneed ee noloshiisa khatarta ay soo food saartay. sidoo kale Maxamed Saciid Beekey oo wax laga weydiiyey showyadii ka baaqday intii uu fanka ku jiray, siba xilligii uu fanka kasii baxayay oo xitaa bandhigyo faneedyo kala gedisan uu ku qabtay meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah, sida magaalada Nairobi ee dalka Kenya, caqabadii uu kala kulmay iyo is-hortaagii lagu sameeyey showgiisa halkaasi ka qabsoomi lahaa, kaasi oo uu ka taariikhiyey arrimo badan oo ka hadlay. sidoo kale xilli uu ku sugnaa dalka gaar ahaan UK Ingiriiska magaalada London ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay caqabado dhowra oo fanka uu kala kulmay, isla mar ahaantaana uu sheegay in ay qayb ka ahayd caqabadii kusoo horgudboonaaday inta uu fanka ku jiray. Maxamed Saciid Beekey ayaanu ognahay in gebi ahaanba uu ka fariistay fanka, hase yeeshee haddana waxa uu sheegay in wixii ka dambeeyey labadii sano ee ugu dambeysay ee fanka uu isaga sii baxayay in uu la kulmayo ama uu helayo fariimo aada u tiro badan oo xitaa qaar ka mid a madaxda reer Somaliland intooda badan ay ka dalbadeen in uu dib ugu laabto fanka. Maxamed Saciid Beekey xitaa waxa uu sheegay in uu usoo bandhigay madaxweynaha dalkaasi Somaliland in Muuse Biixi uu ka codsaday xitaa inuu ku biiro koox-faneedkiisii hore ee xidigaha geeska, isna uu ka biyadiiday. xilligaasina waxa uu sheegay inay ahayd muddadii uu fanka ku jiray. wixii intaasi ka dambeysay Maxamed Saciid Beekey ayaa sheegay sababta uu fanka uga baxay, waxaana uu ku tilmaamay fanka in uu yahay dhibaato qofka biniaadanka ahi uusan wax khayr ah ka dheefaynin, dhibaato mooye. sidoo kale waxa uu sheegay in fanaaniintii ka horreeyey xilliyadii waa berigii ama waa aan iraahday berisamaadkii intaasi intooda badan ay ahaayeen fanaaniin dhibaatooyin kala gedsan kala kulmaya oo aanu heer aada u sarreeya fanka ka gaarin, taasina ay tahay sababaha u doorbiday in gebi ahaanba uu isaga baxo fanka Soomaaliyeed. Maxamed Saciid Beekey oo wareysi xasaasi ah bixiyey, islamarkaana ka hadlay dhacdooyin aada u tiro badan oo inta uu fanka ku jiray uu la kulmay, waxa uu sheegay in fanka khasaarihiisa iyo sidoo kale faa'iidadiisa marka isbarbardhig lagu sameeyo khasaarihiisa in ay aada u badan yihiin. waxaa dhibaatooyinka fanka uu ku tilmaamay in qofka uusan ka tabci karin maal adduunyo magac mooye, sidoo kale magaca fanka laga sameynayo uu sheegay in caqabado badan lagala kulmo, khasaarooyin badanna laga dhaxli karo, sida uu hadalka u dhigay. Maxamed Saciid Beekey ayaa waxa laga weydiiyey sababta uu doorbiday inuu fanka ka baxo, waxa uu beeniyey warar aada u kala duwan oo la xiriiray in lagu cadaadiyo inuu fanka isaga baxo, oo taasi aysan isaga markaasi ka imaan ama dooqiisa aysan ahayn. hase yeeshee haddana waxa uu isagu beeniyey arrintaasi, waxaana uu sheegay in alla dartii uu fanka uga fadhiistay fuxshiga iyo sidoo kale dhibaatada iyo dembiga fanka uu leeyahana uu doorbiday inuusan dib dambe ugu laaban. inkastoo waayadan dambe la arkayay Maxamed Saciid Beekey oo inta badan ereyo kala gedsan ku lariyay mid ka mid ah heesaha ama qaar ka mid ah heesaha ay ku luqayaan fanaaniinta reer Somaliland muddooyinka ugu dambeeyay, haddana waxa uu muuqdaa in uu ku taagan yahay mowqifkiisa ahaa in uu fanka ka baxay oo uusan ku laaban doonin. su-aalaha aadka u tirada badan ee xasaasiga ee Maxamed Beekey wareysigaasi dhinacyada badan taabanaya ee wax laga weydiiyey ayaa ahaa kuwo dhinacyo badan taabanaya, islamarkaana si toosa loogu bartilmaameysanaya noloshiisa gaarka, waxyaabihii uu fanka markaasi kala kulmay, iyo su-aalo aada u tiro badan oo Beekey qudhiisa ka gaabsanaya in uu ku faahfaahinta su-aalahaasi markaasi aada ugu dheeraado. Maxamed Saciid Beekey ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee fanka ku jira ka codsaday in ay isaga baxaan fanka. waxa uu sheegay
in wacyigelin ay u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed siiba kuwa fanka ku jiro. waxaana wax laga weydiiyey maamulkaasi somalilan sida ay isku yihiin cilaaqaad kala dhexeeya isaga iyo madaxweynaha somalilan. waxaana uu xaqiijiyey in muddo 3 sano laga joogo ay isugu dambeysay madaxweynaha reer somalilan muuse bixi cabdi. sidoo kale maxamed saciid bekey ayaa wax laga weydiiyey hadal dhowaan uu jeediyey la xiriiray mucaaradka somalilan oo markaasi si toosa ugu weerarayay afka islamar ahaantana uu ugu baaqayay madaxweynaha somalilan in muddo markaasi kordhin loo sameeyo, iyadoo aynu ognahay in ay aada markaasi isku hayaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee wadankaasi gaar ahaana somalilan. haddaba su-aalahaasi uu ahaa kuwo aada u tiro badan oo maxamed saciid bekey inta badan aada markaasi qaarkood uu uga weecanaya in jawaabtooda uu aada u faahfaahiyo. haddana dad badan oo taageerayaashiisa ka mid ah ayaa waxa iska weydiinaya in uu dib ugu soo laaban doono fanka haddii aynu eegno dhanka fanka su-aalihii markaasi laga weydiiyey iyo waxyaabihii uu ka dhaxlay maxamed saciid bekey ayaa iminka waxa uu xaqiijiyey in uu iminka la mid yahay ganacsatada soomaaliyeed ee reer somalilan, islamarkaana uu doorbiday in howlo gaar ah uu isagu samaysto oo uu isaga baxo fanka, inkastoo ay jiraan warar aada u tira badan oo la xiriira in uu kasoo muuqan karayo fanka soomaaliyeed. haddaba waxyaabaha kale maxamed saciid bekey wax markaasi ka xusay waxaa ka mid ah haddaba kooxdii hore waa beri koox-faneedyadii hore xilliyadii barisimaadka oo uu sheegay in dowladihii jiray xilligaasi ay ka taageeri jireen fanka, balse iminka kooxaha hadda dhisan iyo fanaaniinta iminka ku sugan wadanka in dhibaatooyin aada u tira badan ay la dala dhacayaan oo qaarkood aan wax xuquuq ah ay lahayn, sidoo kalena fanka ay ka dhaxleen mushkilado aada u tira badan. waxa uu sheegay in fanka uu yahay sidiisaba wax aanu maal iyo sidoo kale dhaqaale adduun aanu laga tabci karin, sidoo kalena heer aada u fog laga gaaraynin. sidoo kale waxa uu sheegay in fanka iminka hadda jiro uu aada u baaba-ay marka loo fiiriyo fankii hore oo uu leeyahay waayadan dambe fankii waxa uu iska noqday wax khayrul caadi ah oo qof weliba uu ku dhiiranayo in uu fanaan noqdo. sidoo kale heesaha iminka lagu luqeynayo oo uu leeyahay qaarkood nuxurkii iyo xikmadihii ayaa gebi ahaanba ka maqan marka loo fiiriyo heesihii xiliyadii hore jiri jiray. haddaba isagoo aada u dhaleeceynayo fanka iminka hadda jira ayaa maxamed saciid bekey waxa uu sidoo kale sheegay in fanka gebi ahaanbu uunan ahayn wax markaasi lagu tiirsanaan karo, isla markaana uu yahay wax qofka bini-aadanka ay tahay inuu iska soo gebagabeeyo si uusan wax dhibaato aada u xoogan markaasi oga dhaxlin. haddaba muuqaalkan haddii aad ka heshay waan filayaa in aanu ka gudbi doono, intaasi ayaan kaga gudbaynaa. waad ku mahadsantihiin subscribe-ta inoo saara janalkan, sidoo kale like gare haddii ay tahay markaa koobaad aad nagu soo biirayso gambaleelka furo si mar weliba waxyaabaha halkan aan soo dhigno ay kusoo gaaraan ama aad noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada halkan aan ku baahino. aad baad